Miss Wall oo kamid ahayd gabdhaha ugu caansan baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok oo runtii ay haysatay in ka badan 2 milyan oo qof ay sida joogta ugu xidhnaayeen muuqaalada ay ku soo gudbisay barteeda TikTok ayaa waxa ay ka degtay magaalada Hargeysa subaxnimadii saaka. haddaba gabadhani yarta ayaa maanta lagu xidhay magaalada Hargeysa gaar ahaan garoonka Cigaal International ee magaalada Hargeysa. Miss Wall waxay runtii ahayd farxad ay runtii dareemaysay tan iyo intii ay Hargeysa u soo socotay iyadoo dhamaanba dadka aaladda bulshada ka caanka ah gaar ahaan TikTok ay muddooyinkii ugu dambeysay ku sugnaayeen magaalada Hargeysa halkaasi oo ka jira u diyaar garowga arooska labada lamaane ee TikTok sida weyn looga yaqaano waa boqorada isteelka iyo sidoo kale Haakul oo runtii noqday lamaane mucaashaqiina oo soo jiitay indhaha taageerayaashooda iyo sidoo kale shacbiyada kala duwan ee aaladda TikTok. haddaba Miss Wall oo kamid ah gabdhaha lagu jecel yahay aaladda TikTok ayaa rabtay inay ka qayb qaadato arooskani lamaanahani cusub ee ku aqalgalaya magaalada Hargeysa. hase yeeshee ciidamada ammaanka Somaliland ayaa xabsiga u taxaabay tan iyo markii ay soo caga dhigatay diyaaradii ay saarnayd kana soo degtay garoonka diyaaradaha Cigaal International. gagiga diyaaraduhu ka duulanaya Cigaal International ayaa noqday runtii mid dhalinyaro badan ay caqabad kala kulmayaan halka qaarkood hadda ay ku soo galaan gaadiid kala duwan Somaliland ilaa Muqdisho oo ay diyaaradda ka raacaan magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland. si walba ha noqotee tani ma aha markii u horeysay ay caburin la kulmaan dhalinyarada u kala safraya Muqdisho iyo Hargeysa. hase yeeshee hadda waxay noqonaysaa tan iyo intii xukuumadda madaxweyne Biixi ee ka arriminaysay wadanka mid sii xoogaysanaysa. saaxiibayaal muuqaalkii intaas ayuu geeyahay sheergareeya muuqaalka la wadaaga asxaabtiina iyo dhammaan Soomaaliyeed. waxaanu idin xasuusin doonaa muuqaalo kala duwan ee horey u soo dhigi jirtay Miss Wall baraheeda bulshada annagoo runtii xariga Miss Wall ay la socodsiin doona saacad walba sida uu ku ekaado.